kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada xogihii ugu dambeeyey aynu ka helayno dalka Itoobiya. Waxaa laga soo warinayaa deegaanka Axmaarada banaanbaxyo deegaanka Axmaarada ka bilowday. Ardayda wax ka dhigata dugsiyada magaalada Debre Marcos ayaa maanta dibadbax sameeyey waxayna sheegeen inay kasoo horjeedaan faragelinta iyo cadaadiska reer galbeedku ku hayo Itoobiya. Maalinta berri ahna waxaa la qorsheynayaa dibadbaxyo waaweyn oo deegaanka Axmaarada ka qabsoomi doona kuwaas oo lagaga soo horjeedo TPLF. Dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Gitajo inuu been u sheegay. Mareykanka oo mar kale ka hadlay hadalkii dhowaan ka soo yeedhay Gitajo Reda ayaa beeniyey xogihii uu dhowaan shaaciyey. Xogta uu baahiyey Gitajo waa mid xaqiiqda ka fog oo been ah. Mareykanka marnaba dhinac lama safan mana taageerin qabashada TPLF ee Addis Ababa ayaa lagu yiri warkan oo looga jawaabayay hadalkii Gitajo. Sidoo kale maamulka sare ee jaamacadda Wollo ayaa sheegay in burbur xoogan iyo boob loo geystay jaamacadda. Maamulku waxay arrimahani ku eedeeyeen TPLF waxayna sheegeen in dib u dhiska jaamacadda ay u baahan tahay lacag gaaraysa 15 bilyan oo bir ah. Goobaha si guud u burburay waxaa ka mid ah qaybta caafimaadka iyo shaybaadhka. Jaamacadda Wollo ayaa ku taalla deegaanka Axmaarada. Abiy Ahmed waxa uu soo celiyey xasuustii boqoradda Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa soo celiyey xasuustii boqoradda Itoobiya kadib markii uu galay farumaha dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF. Muuqaalo iyo sawirro cajiib ah ayaa laga duubay Abiy oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka isagoo xiran dareeska ciidamada wax ku eegaya torobiinka geed hoostiisana ku jira. Kuwa doonaya in ay ka mid noqdaan wiilasha Itoobiya ee lagu xasuusto taariikhda waa in aad sare u kacdaan dalkiina ayuu yiri Abiy. Professor Jeti Tromvel oo wax ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway ayaa sheegay in aysan shaki lahayn in tallaabada Abiy uu ku galay dagaalka ay wax ka bedeshay natiijada, balse wuxuu qiray in sawirrada ay muujinayaan in uu furiinta u dhow yahay ee uusan gelin meesha ay xabadda ka dhacayso. Ciidamada TPLF ayaa ku laayay dad magaalada Debre Birhan oo 130 kiiloomitir oo kaliya u jirta Addis Ababa ka hor inta aanan dib looga riixin magaalada Weldeya oo 400 kiiloomitir u jirta caasimadda Addis Ababa. Professor Tromvel wuxuu sheegay in isbeddelka ugu weyn ay ka timid dhanka diyaaradaha droneska oo Itoobiya ay ka keensatay Turkiga, Shiinaha iyo Iiraan. Diyaaradaha nooca Wing Long E ee Shiinaha ayaa ah kuwo aad uga awood badan dhanka burburinta taangiyada, hubka culus ee madaafiicda goobta iyo weliba ciidamada lugta ah oo ay bambaanooyin la dhici karto, ayuu yiri Professor Tromvel. Abiy waxa uu sheegayaa in uu la dagaalamayo koox u adeegaysa cadowga Itoobiya isagana uu yahay kan u dagaalamaya soo celinta sharafta Itoobiya si la mid ah boqoradii hore. Bishii November ayuu Abiy Ahmed kooxda TPLF la barbar dhigay ciidamadii Talyaaniga ee ku soo duulay Itoobiya kuwaasoo lagu jabiyey dagaalkii Adwa ee 1896. Dagaalkaasi oo hormuud ka ahaa boqorkii Itoobiya Menelik I kaas oo ka soo jeeday gobolka Axmaarada. Kumanaan qof ayaa dibadbax ka dhigay Addis Ababa waxayna taageero xoog leh u muujiyeen Abiy iyo dowladdiisa. Sida uu qaba Abdiraxmaan Sayid oo ah falanqeeye ku nool dalka UK, Abiy waxa uu helay taageero weyn oo dadka Itoobiyaanka ah. Waxa uu aad ula dhacsan yahay boqoradii Itoobiya soo maray. Mar uu dad dhageysanayay u sheegay in hooyadiis ay ku riyootay isagoo boqor noqday uuna noqon doono boqorka 7aad ee Itoobiya, ayuu yiri Professor Tromvel. Obama ayaa helay abaalmarinta Nobelka isagoo dagaal diyaaradaha droneska ah ka waday Afghanistan, balse wuxuu kaga duwanaa Abiy. Wuxuu arrimaha kaga hagayay qolka howlgallada ee farumaha uusan aadin sida Abiy oo kale, ayuu yiri aqoon-yahankani. Abiy markii koowaad waxa uu tagay furiimaha bari ee dagaalka halkaas oo ciidamada gaarka ee gobolka Canfarta ay ka dagaalamayeen. Gobolka Canfarta waa kan ugu xiga gobolka Tigreega. Dhaqan ahaan qof kasta oo lab ah oo Canfar ah waxa uu haystaa qori marka uu gaaro da'da 15 jirka ah. Waxaa loo yaqaanaa halyeeyo. Waxa ay sameeyeen iska caabin xoog badan iyadoo oo markii ugu horeysay dagaalka galeen dumarka Canfarta, ayuu yiri Abdiraxmaan Sayid. Abdiraxmaan wuxuu qabaa in iska caabinta Canfarta ay TPLF ka hor istaagtay in ay gaaraan xuduudda Djibouti halkaasoo Itoobiya ay wax kasta ugu soo degaan. Haddii ay TPLF qabsan lahayd xuduudda Djibouti, dhaqaalaha Itoobiya jilbaha ayuu dhulka dhigan lahaa.
wax badeeco ahna Addis Ababa ma aysan gaareen. Sidaasi darteedna waxaa kordhi lahaa fursadaha ay TPLF ku qabsan karto Addis Ababa, ayuu yiri Cabdiraxmaan. Abiye mar kale ayuu furiimaha ku noqday, waxaana muuqata in ciidamadiisa ay gaareen guulo iyaga oo la wareegay magaalooyin kale. Professor Tronvol wuxuu qabaa in inkastoo uu Abiye u xajistay awoodda, haddana uu dhaawacay sumcadiisii caalamka isagoo iska dhiga tiray dhammaan baaqyadii xabad joojinta, xilli la soo wariyey in ciidamadiisa ay galeen gabadfalo. Balse Cabdiraxmaan Sayid waxa uu qabaa in Abiye uusan lahayn dooq badan iyo kala doorasho, uuna ku qasbanaa in uu iska caabiyo TPLF.